Agaasimaha Madaxtooyada Madaxtooyada Somaliland Marwa Khadra Xaaji Ismaaciil Yuunus Khadra Xaaji garo warbaahinta qaranka Somaliland kula hadashay gudaha qasriga madaxtooyada ayaa waxa ay daboolka ka qaaday in haba yaraatee aanay jirin shaqaale la eriyay oo laga eriyay madaxtooyada Somaliland. waxa muddooyinkan dambe aad iyo aad loo hadalhayay in shaqaale fara badan madaxtooyada laga eriyay shaqaalahaas oo dhan 109 meelahaas dadku ay lahaayeen laakiin waxaan idin cadeynayaa maanta in shaqaale la eriyay ayna jirin oo madaxtooyadii laakiin shaqaale 85 qof ay madaxtooyada ay ka baxeen sababta ay uga baxayna ay tahay waa la eriyay maaha arrinta uga baxay waxa weeyaan shaqaalahaas wasaaraddu awal wasaarad ballaaran bay ahayd wasiirka madaxtooyada laba wasiir dawle hal wasiir ku xigeen afarta qof oo wada wasiiraa marka laga reebo wasiirka madaxtooyada wasiir ku xigeen laba wasiir dawle kale waxa ahayd wasaarad bariga galbeed aad ka shaqeysay ahayd arrinta markii wasaaraddu meesha ka baxday intaasoo wasiiroo shaqada sii ballaarinaya meesha ay ka baxeen intaasoo qof oo shaqaale ay meel buu shaqeynaya ka baxeen arrintii waxay isku soo kobatay inay noqoto wasaaraddii madaxtooyadii isla markaana baahidii shaqo ee awal taalay maanta way yaraatay taasoo markii hore laftigeega shaqaaluhu nagu badnaa sababuu noogu badnaana ay ahayd baahi ka imaysa xagga bulshada soo qofka mataqaanaa bulshada loo qiimeynayo baahidaa meesha taalla laakiin ugu dambeyn xafiisyada inaan sii ballaarinaan doonaynay taa maanta wax ka duwan baa yimid wasaaraddii baa meesha ka baxday isla markaa wasaaraddu meesha ka baxdana waxaanu dareemi karaynaa caqliga fayoobi inaan waxaasoo qofka ka shaqayn karin xafiisyada qaar baa waxaa wada fadhiyey hal xafiis 16 qof waa temporary marka hore intay awalba qaadanayeen ayay sidii u qaadanayaan hay'adda shaqaalahaanu marinaynaa hay'adda shaqaaluhu sifooyinkii u mareysay sharciga haba u mari doontaa dadkaas marka lagu soo shaqaaleeyo barman ay noqdaan wasaaradaha u kala baahan ayaa la kala geyn doonaa nin walba baahidiisa nin walba halka uu aqoonteeda u leeyahay ayaa la geyn doonaa annagu haddaanu qaar uga baahnana way nagu soo noqon doonaan marka waaxyahayaga iyo dhismahooga iyo daadejintooda aanu hoos u sii galno taas awgeed intaa ka horeysa inamadaas ay shaqada helayaan ay dhammaanayso arrintaas sababtay iminka degdegina waxa weeyaan in la samaynayo Somaliland dhan madax taabasho horta anaga dadka dhalinyarta joogay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku ixtiraamay inaan inamada ay xuquuqooda ay helaan maanta way hirjireen maanta ay helaan mar labaad dhalinyarta waxaan iyagana u qirayaa inay yihiin dhalinyar hawlkar ah inama aad iyo aad u shaqeynayay inama aad iyo aad u aqoonyahana inama nadiifa inama aan shaqo xumo hawlo badan oo qaranku leeyahay halkan lagu qabtaa waa inamada iyaga laantooda la suurtooday inamada wax shaqo xumo ah shaqo yaraan waxaan ahay shaqadii oo soo koobnatay waxaan ahay may ka dhicin meesha ereyga waxaan ka hadlayaa lama horta inamada sifada sharciga ah ee hay'adda shaqaaluhu inay inamada mariso nidaamkii imtixaanaadka u baahnaayeen kabacdina barman laga dhigo annagu intaanu baan wasaaraddu inta u baahdaan in la geeyo arrinta qori meesha ku jirta horta waa intaa waxaan leeyahay dhalinyarta yaa la siyaasadayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dhalinyarta inuu kor u qaado hableena ay ballan qaaday kuwii bay kamid yihiin dawladda ku jira maanta inay lagu waafaqsadaan ay meel ay shaqadoodu taalo ay namadaas ay helaan dhalinyarta shaqadooda inaan siyaasad laga dhigin calafka iska jira qofka ilaahay goorta qoray buu shaqada galaya goorta Allah qoru ka tagi kara waa nidaam inuu baahan maalin bay noo saxmi doonto heer fiican baynu soo marnay laanu waa joogo imkana waa joogo markaana waa joogo wax deeqaldana ma jirin laakiin duruufaha mar walba shaqaalaha inay dhalinyaro shaqo doonaya waa mararka qaarkood joon baahid baa inuu doolin ay khasab ku noqonaysaa inuu dhalinyartu ay shaqo helaan maaha mataqaana wax qaldan waa waxay jaamacadaha uga soo baxayaan haddii ay shaqadaas markaa cidhiidhi noqotona in la kala baahiyaa oo wax meesha ku jirta marka waxaan leeyahay dhalinyarta waxay nagaga maqan yihiin nidaamkaasay mari doonaan intaanu u baahano inta meelo kale u baahdaan waa la geenayaa arrintaana waxaan dadka ku dardaarayaa inaan la siyaasadaynin